horta heesta qaranka loo yaqaano ee Soomaaliya toos waxaan tiriyay 47 yaan tiriyay igamana ahayn aniga wadanimo uma tirinayn waxaa jiray macallimiinta markay Suudaanta iyo noo yimaadaan macallimiin Soomaalida noo yimaadaan oo ma garanaysa Carabida iyo waxa laga yaa heesa loo qaadi jiray heesa Carabi ah yaa loo qaadi jiray oo khaasan Suudaaniya oo nimankii macallimiinta ah Suudaanta ka ahaa Hargeysa ayaa yaryarkii baray heeso Suudaaniya markaas heesahaas hala haya idwi faladaya heesa caynkaas ah oo Suudaaniya yaa la qaadi jiray markaas marka salaadiinta iyo garaadida iyo ay yimaadeen madaxda Soomaaliyeed baadiyaha ka yimaadaan ee salaadinta yaa loo qaada heesta markaas anigii la yaabay oo miyi garanayaan waxan من مهباديه كذا عاقل هو ما قلتي أن صومالي ما هو wax kala aqoon maxaa heestoodayna loogu qaadiyo garmaayo markaasaan isri meed ay afahmayaan ma du sameeyay markaasaan Soomaaliya toos heesta say saasay miraha heesta qaranka Soomaaliya inta badan waxa la xasuusan yahay laba beet waa imisa beet horta heestaasi heesta loo yaqaano heesta qaranka إلى صوماليا توس waxaan tiriyay kun iyo 940 heesta Soomaaliya toos dadku laba beed baa laga yaabaa inay ka yaqaaniin wax ku dhow laakiin waxay ka koobantaa 7 beed oo asli ah iyo mid aan ku daro oo aan iyada la socono qaybiyada aan la socono reer baadiyaha ula jeeday inaan ku soo magantaa xiisa ugu yeelo markaas dooda beed baa runtii ay ka koobantay Soomaaliya toos waxaad sheegtay in heesta Soomaaliya toos oo ay ka kooban tahay 7 beed adigoo waqtigaada qaadanaya heesta ma noo marin kartaa heestaasi saar u sheegay waxay ka kooban tahay 7 beed inta asliga inta dadku darsadeen mooyaane heesta inta asliga ahi waa 7 beed beedka u horeeya wuxuu ahaa Soomaaliya toos oo isku tiirsada hadba kiina taag daran taageera weelkiin beedka labaad wuxuu ahaa idinka isu tooqayo idinka isu taamaye aadamuhu tacliin barayo wadankiisa taamiyeen heesta qaybta beedka saddexaadna wuxuu ahaa tira ariyo dhaxala yaa sideed laydin soo tobay oo nimba toban la meel maray oo cadowgiin idin talin beedka afraadna wuxuu ahaa qaran aan hubku tumayo tooreyda dhaafayn oo aan taar samayn karin urku taalo weyna beedkana wuxuu ahaa tuldageelo hoo dhacan baad toogasho u badheedhaan ma dhulkaas dhanee tegay baan ina dhagax u tuuray kalena wuxuu ahaa sharciga isku kiintolado luqada tu waaxidaho arligeena taaka aho kuma kala tegaysaan midna kraasana waxay ahayd hadba waxaan la taahaado togaga uga qaysha nin dalkiisa cadow taabay oo u talwaayay baan ahay saas intaas 7 beed asliga intaas ay sahay marka qaadana deesana waxa uu qaadan jiray Soomaaliya tooso isku tiirsaday hadba kiina taag daranay taageera weelkiinay idinkaysu tooqayo idinkaysu taamaye aadamu tacliin barayo wadankiisa taageeliyay reeraadiyo dhaxala sideed laydin soo tubayo nimba toban la meel marayo cadowgiin idin talinay qaran aan hubku tumayoy tooreyda dhaafaynay oo aan taar samayn karinay
urkutaa la weynaayey hadba waxaan la tahayo togaga uga qayshaayey nin dalkiisi cadow taawo u tolwaayey waan ahayey haddaan meel yar maka raaciyaan yaroo aan ka manayo marka anaa leeyahay tiro adhi oo dhaxalaa sideeda idin soo tobay oo ninba toban loo meel madhayo cadowgeen idin talin ujeedadeeda waxay ahayd waa dhul la qaybsadado dee Kenya in bay haystay Ethiopia in bay haystaa maqal saasaa loo qaybsaday macnaha dhul la qaybsaday weeyaan yani xaggaas amritisaasa amritiisa waxaad sheegtay in heesta ay ka kooban tahay 7 beyd laakiin uu jiro beej kale oo aad ugu talagashay reer miyiga oo qaafiyada aan la socon bal ma noo marin kartaa idan beejkaas aan qaafiyada la socon ilaa kuwa kale ta oo la socdaan kan waa alif la socdaa oo wuxuu ahaa hadba waxaan la ooyaayo ilmadu iga qabataa ikhtiyaar nin loo diido la adoonsadaana beedkaas oo qaafiyada aan la socon oo kuwa kale waa ta way isane hadba waxaan la tahaado ta way la socdaa laakiin kan waa alif hadba waxaan la ooyaayo ilmadu iga qabataa ikhtiyaar nin la diido la adoonsadaana beedka weeyaan beedka aan badana reer miyiga sidoo jirin jiray markaan tiriyo way xiisan yihiin oo jirin dadka reer miyiga waxaa jirtay in heestani ay horey u sheegteen laba abwaan oo Soomaaliyeed الله نحرسته لبداس أبوان وحي كلا هايين أبوان قاسم هلولة يوليبا أبوان يوسف حاج آدم ما حد كعدين يسا إن هستني عد أديق ولا هاي هستن وحن كعدين يا لبداس يعني إن أنا هسا على هاي من وحوي هرت قاسم هلولة هرئيسين يا هسا مركي أنتريي نين اللي يقولون شيء داود تما يرى ورهرق على كعيوطة أيها هسا قالوا حمر جي marka wuxuu geeyay Soomaaliya toos oo kaliya uu geeyay isagoo intii hayn Qaasim Holoolo idaacada fura yaa ku fura Soomaaliya toos ku furay intaas ku fura aroortii buu ku fura marada idaacadu subax walba ku furo ayuu isisiiyay marka anigoo maqanba oo aan joogin dalkaba joogin waddanka Sacuudiga jira ayaa la heesii la yiraahdo hees Soomaaliyeed loo qaato heesta qaranka markaas Soomaaliya toos loo qaato markaas uu sheegtay in aniga ale markaas dhag niman baa la hadlay ilmaada heesan ma laha nin kari waxaadan u lahayn de luqadaba kuma jirto ayaa la weydiiyay waxa la yiri macane tuldag markaas uu garan waayay tuldageela hor dhacama toogasho uga dheena ereyga tuldaha la yiraahdo uu garan waayay wuxuu kala garan waayay idinka isu tooxayo idinka isu taamayo kelmadda tooxana وقرن واي أو كفر واحد لو يقال بوت إرجع طاق لو يقال بوت كفر لو يقال إرجعس مركز هالكاس أيو سو كهذا يوسف حاجة عاد من آد سوغان أنا إيجا بديوه من سوغان تبديوه آد كويدي سينا وان دتك وان القريني كوا بدن أو كردرن أو وردانية يا شري يعني مثل واحد كحصوصنا إن عمر جوي وتري وجوي صاها وجوي صاها طاحتها واس مش يلا مدع الكود ذلك واحد نولان هاي تليو ذلك حافوني دل بقى إنه قرر هذا لسوق يندرين هذا الصوار ده أنت أفرد جيس له أنت هذا لسوقين لما تاكت يعني الصوار قبصاليسه إنه يعني جميع عين هذا تريجي ما يوجد وحكوا أولها هستن محاها صماية توس مركي أنا قاعد تريجي وحنا هي مرور كارد أنا تجيبان لنا قري أطوري يعني مركا السجاير ورقري قبل ولا رح خليك مركز إلي جاني بولية مرور كارد ولا تجيبان لنا كحط أطوري لكن واسكا هس واسكا عضهاي